waxaa la dhaafay waqtigii kama dambaysta ee Ruushku uu qabtay inay isku soo dhiibaan askarta ka dagaalamaysa magaalada lagu hareereysan yahay ee Mariupol. Dowladda Ukraine ayaa sheegtay in aysan su'aal ka taagnayn in ciidamadooda ay hubka dhigayaan. Ruushka ayaa u soo bandhigay ciidamada Ukraine iyo shacabkaba in ay si badqab ah uga baxaan magaalada Mariupol. Taliyaha duqa magaalada ayaa sheegay in Ruushka aan la aamini karin. saraakiisha Ruushka ayaa sheegay in ay xakameeyeen qubashada maadada ammonia oo ay sheegeen in ay ka dhalatay gantaalada Ruushka oo ku dhacay warshad kiimiko oo ku taala meel u dhow magaalada la haysta ee waqooyi bari dalkaasi dhacda ee Sami. Ruushka ayaa iska fogeeyay in weerarkaasi uu isagu fuliyay. Solomia Bobrovska oo xubin ka ah baarlamaanka Ukraine ayaa BBC-da u sheegtay waxa ay ka ogtahay dhacdada. This dangerous situation in the nearby village, which is situated in 2.5 kilometers away from this. xaalad khatarteeda leh ayaa ka jirta tuulo 2.5 kilomitir u jirta warshada. waxaana uu madaxa maamulka shaaciyay in khatartu ay ka jirto 2.5 kilomitir oo kaliya. waxaan haatan sidoo kale war ka sugaynaa Sami. marka hadda macluumaadka aan hayno waa inahaas. So for now that's the only information we have. madaxa arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa Ruushka ku eedeeyay in uu geysanayo dambi dagaal oo aad u daran kadib weerar uu ku qaaday magaalada Mariupol. waxa uu sheegay in Ruushka duqeymo iyo dil aan kala sooc lahayn uu kula kacayo dadka ku nool halkaasi isagoona guud ahaanba burburinaya magaalada. waa sida uu yiri Mr. Borrell ayaa sheegay in Ruushka uu u dhaqmayo si ka baxsan xeerarka dagaalka. duqa magaalada Kiev ee Ukraine ayaa ku dhawaaqay bandow 35 saacadood oo lagu soo rogayo caasimadda dalkaasi taasi oo ka bilaabmaysa 8 fiidnimo. waxa uu sheegay in dukaamada iyo kaalmaha shidaalka aan la furi doonin Talaadada isagoona ka codsaday dadka deegaanka in ay guryahooda joogaan. dadaalo lagu doonayay in gargaar bini'aadanimo lagu gaarsiiyo dad lagu qiyaasay 300,000 qof oo ku go'doonsan magaalada la go'doomiyay ee Mariupol ayaa weli hakad ku jira. laguma darin liis ay dowladda Ukraine sheegtay in ay isku waafaqeen ciidamada Ruushka kadib hadiidmadii Kiev ee ahayd in ay soo wareejiso magaalada iyadoo ku bedelanaysa in dagaalyahanada hubka laga dhigay iyo rayidka ay si nabad ah u maraan. Ukraine ayaa mar kale ku eedeysay Ruushka inuu xanibay kolonyo gargaarka u sidaya Mariupol halkaasi oo ka jirta xaalada aad looga naxo. mid ka mid ah dadka degan magaalada dekedeedka go'doonsan ee Mariupol ayaa barta Facebook soo dhigtay xaaladaha ka jira magaalada mar ay wadada dhex maraysay xilli ayaa waxay sheegtay in dhismaha ay degan tahay uu yahay kan kaliya ay ka badbaaday gantaalada sida tooska loola beegsaday guryaha kale. waxay ku tilmaantay magaalo dhimatay oo aan gawaari lagu arkayn lagana maqlayn codad ama caruur balse kaliya lagu arkayo dhismooyin gubanaya oo ay hoos yaalaan meydada. dadka ku haraya magaalada ayaa waxay ku nool yihiin qaybta hoose ee guryahooda iyagoo aan haysan cunto ku filan, biyo amaba koronto. haweeneydan ayaa sheegtay in ay iyada qudheeda filayso in ay dhimanayso balse waxay rajaynaysaa in aysan noqon doonin geeri argagax leh. booliiska ayaa kula taliyay in meydadka waa meydka qof qaraabo la ah oo saaxiibteed ay dhigto balkoonka maadaama aan meydadka la aasi karin inta uu dagaalku socdo. afhayeenka madaxweyne Putin Dmitry Peskov ayaa sheegay in waxaysan ka soo cusboonaan dhanka Ukraine inta uu socdo dagaalka. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa mar kale ku celiyay in uu rajaynayo in wadahadal toos ah uu la yeesho hogaamiyaha Ruushka. balse Peskov ayaa sheegay in horumar la taaban karo loo baahnaa ka hor inta aan laga fakirin in Putin iyo madaxweyne Zelensky ay yeeshaan wada xaajoodyo toos ah. heerka geedi socodka wadahadallada u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka ma gaarsiisan heerkii aan rabnay. wadahadalladaasina ma ahan kuwa ka turjamaya sida ay xaaladdu isu bedeshay dhanka Ukraine marka la eego. waan ku celinayaa mar kale dhinaca Ruushka waxa ay muujinayaan in ay doonayaan in si degdeg ah loo shaqeeyo marka loo eego dhanka kale ee ergada ka socota dhanka Ukraine. inaan haatan ka hadalno heshiis dhexmara labada madaxweyne waxaa ka horeynaya arrimo badan oo dhanka farsamada ah.
waa in marka hore la wada hadlaa wixii wadahadalkaa ka soo baxayna lagu heshiiyaa ilaa iyo haatanna wax guul ah lagama gaarin arrintaasi marka waa arrin degdeg ah in laga hadlo kulan dhex mari kara labada madaxweyne saa wax miiska u saaran oo ay ka wada hadlaan maba jiraan mana jiraan wax laga heshiiyey oo ay iyagana si ambaqaadaan maamulka degada ugu weyn ee Ukraine ee Odessa ayaa sheegay in ciidamada badda ee Ruushka ee ku sugan badda madow ay gantaalo la dhaceen dhismooyin la degan yahay oo ku yaala duleedka magaalada waa markii ugu horeysay ee dhismooyinka halkaasi la weeraro afayeen u hadlay maamulka militariga gobolka ayaa sheegay in wax khasaare ah aan la soo sheegin duqa magaalada ayaa booqday deegaanka ciidamada Ruushka ayaa go'doomiyay Odessa balse waxaa joogsaday ciidamada dhanka galbeedka magaalada uga soo galayay iyadoo dhulka la maraya